lamaana u dhashay waddanka India ayaa waxay sheegeen xafladda meherka arooskooda in uu ka dhici doono dunida khiyaaliga ah ee metaverse. sidoo kale xafladaas waxaa ka soo qayb gali doona gabadha aabaheed oo dhintay muddo sanad ka hor. haddaba sidee wadamada Yurub oo laga joojin doona isticmaalka Facebook iyo Instagram-ka waa maxay sababta? Ask you today very clearly that would you accept that today Facebook is not a platform for all ideas that is operated impartially? Because it's nonsense, naturally. You have given the example of Twitter, you have given the example, I think, also of Google, as some of your competitors. But Facebook oo khasaaray abid lacagta ugu badneed adduunka $232 bilyan. For the first time, Facebook finds itself struggling for friends. Its number of users has fallen, spooking investors and sending the platform's share price plunging. Now on Facebook, the company's stock plunged overnight after reporting a big decline in daily users for the first time in its 18-year run. waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada. muuqaalkeena waxaan kaga hadlaynaa oo ku falanqeynaynaa macluumaad ku saabsan shirkadda Meta ama Facebook. lamaana ka soo jooda waddanka India ayaa waxay sheegeen xafladda arooskooda inuu ka dhici doono dunida khiyaaliga ah ee metaverse. metaverse waa dunid khiyaali ah oo ku shaqeyn doona Facebook. isticmaalka Facebook ayaa isku bedeli doona nidaamka cusub ee khiyaaliga ah ee lagu magacaabo metaverse. metaverse waa dunid khiyaali ah oo kiyaalaha indhaha ayaad gashanaysaa, waxaadna booqanaysaa magaalo aad u qurux badan. magaaladaas oo aad ka dhaxelayso wax alla waxaad u baahan tahay. gaari ayaad ku dhex wadanaysaa, guri ayaad ka dhex gadanaysaa, maqaayad inta fadhiisata ayaad shaah ka cabaysaa. laakiin waxaasoo dhan waa khiyaali oo wax ka jira ma lahan, kaliya kiyaalaha indhaha aad gashatay ayaa kuu sawirayo. haddaba lamaanahan India ka soo jooda waxay sheegeen in xafladda arooskooda uu ka dhici doono dunidaas khiyaaliga ah. Option in metaverse. So I hope you guys know that we are the first couple in the nation who's getting married in metaverse on first week of. waxaana sheegeen xafladdaas inay ku casuumi doonaan ilaa 2,000 oo qof, waxaana isku ekeysiin doonaan oo xafladda kaga soo qayb gali doonaan ayagoo cartoon ah. sidoo kale xafladda waxaa lagu casuumay oo speech ka joodin doono gabadha aabaheed oo dhintay 1 sano ka hor, asagoo cartoon ahaan isku ekeysiin doono. sawirkan waa sida uu ku matali doono gabadha aabaheed. xafladdan waxay ku qabsan doonaan qasri aad u weyn oo aad u qurux badan oo waliba laga dhaxelayo wax alla waxay u baahan yihiin. waxay sheegeen qasrigaas ay ugu talagaleen inay xafladda ku qabsadaan haddii sida saxda oo adduunyada ku ooli lahaa inaysan awoodin qarash ahaan, laakiin metaverse ay u sahashay inay qasrigaas xafladda ku dhex qabsadaan. So metaverse is a technology works in blockchain. So one fine day, I came up with some metaverse videos on YouTube and Facebook. So Facebook is working on Meta. So I thought, why can't we do a event? dad badan ayaa la yaabay fikradda lamaanahan. waxa ayna noqonayaan lamaanihii ugu horeeyay oo abid ku qabsaday xaflad aroos metaverse ama dunida khiyaaliga ah. sida saxda ahna sanadyada soo socda isticmaalka Facebook ee hore iyo gadaal loo gadgadinayo oo isbedeli doona, waxaana u guuri doonaa dunidan khiyaaliga ah ee metaverse oo kiyaalaha indhaha ayaad gashanaysaa, saaxiibkaaga ayaad kula kulmaysaa meel cafeteria ah, meeshaas ayaad ku shaaxeynaysaan kuna wada sheekeysanaysaan. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. sidoo kale Facebook ayaa wajahaya caqabad kaga imaaday wadamada Yurub. dawladaha wadamada Yurub ayaa waxay Facebook ka codsadeen in macluumaadka muwaadiniintooda lagu kaydiyo isla wadamadooda, oo aanan macluumaadka muwaadiniinta wadamadaas Yurub ka soo jooda aan lagu kaydin isla wadanka Mareykanka. waxay codsadeen in kombiyuutar aad u waaweyn lagu sameeyo wadamadooda oo macluumaadka meeshaas lagu kaydiyo si loo ilaaliyo sirta muwaadiniintooda. laakiin Facebook waa ay ku adkaatay. waxa uu sheegay haddii saan isku afahmi waayaan in isticmaalka Facebook iyo Instagram-ka uu ka joojin doono wadamada Yurub. haddana waxaa socoto dood u dhaxaysa arrintaas in Facebook uusan awoodin in macluumaadka muwaadiniinta Yurub uu ku kaydiyo isla wadamadooda.
shirkadda Meta ee Facebook ayaa hal maalin ku qasaartay lacag dhan 232 bilyan oo dollar waana lacagta ugu badan ee abid ay qasaarto shirkad Mareykan ah. Qasaaradan aadka u weyn oo Facebook wajahaya ayaa waxay ku sheegayaan inay hoos u sii dhacayso dadka maalinlaha u soo booqda Facebook ka soo bilaabatay waagii Facebook la sameeyay dadka Facebook isticmaala aad ay u soo kobcayeen oo tiradooda aad ay u sii badanaysay laakiin maalmahan dambe dadka Facebook isticmaal hoos u dhacaya ku yimid. Facebook, a social media giant defined by its obsession with growth, has announced a loss in daily users for the first time. Logins fell by about 500,000 in the final 3 months of last year. Hoos u dhacaasna waxaa loo sababeynayaa ababka cusub ee hadda soo baxay oo Facebook tartanka kula jiro oo uu kow ka yahay TikTok. Shirkadda TikTok ayaa noqotay shirkadda ugu isticmaalka badan adduunka looguna booqasho badan yahay sanadkii hadda dhamaaday 2021. waxa ay soo jiidatay dad aad u badan. Tirada inta qof ama populationka adduunka ku nool hadii la fiiriyo waxa ugu percent badan dhalinyarada hadda soo kacaysa ee loo yaqaan teenagers-ka. Teenagers-kana waxay aad u isticmaalaan TikTok. Facebook-na qasaaradiisa ugu badan waxa ay uga imaanaysaa dhinacaas iyo TikTok. waa sababta keentay shirkadda Facebook inay wax ka bedelaan qaabka ay dadku u isticmaalaan Facebook. waxayna hadda u guurayaan nidaamkan cusub ee la magac baxay Metaverse. TikTok asagana sanad walba waxa lagu soo kordhiyaa update cusub oo waxa uu tartan kula jiraa applicationadan kale ee YouTube-ka, Facebook iyo Instagram-ka oo meesha waxa ka socda tartan xoog leh. muuqaalkan intaas ayuu noogu egyahay. haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow muuqaalkana like saar si dad badan u sii gaaro waqtigaagana waad ku mahadsan tahay.